magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga kadib falal amni darro oo ka dhacay gudaha magaaladaasi Boosaaso iyo deegaanada ka tirsan gobolkaasi Bari. Kulanka waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdisamad Galaan, taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka Puntland ee gobolka Bari, odayaasha dhaqanka ee magaalada Boosaaso. Kulankan waxaa diiradda lagu saaray xaaladda amniga gobolka Bari, si gaar ah magaalada Boosaaso oo tiro dhowr jeer ay ka dhaceen falal amniga lidduka waxaana ugu dambeyn laga soo saaray go'aamo la xiriira amniga. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdisamad Maxamed Galaan oo kulanku markuu soo daaday saxaafadda kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ka wada hadleen iyo qaabka loo sugayo amniga deegaanada dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso. Ka koobnayn ufti balaaran oo golaha xukuumadda ka tirsan oo ka yimid magaalada Garowe iyo qayb wasiirada kamid oo naga soo horeysay aan ugu nimi Boosaaso, maamulka gobolka iyo maamulka degmada, qaybta iyo taliyaha booliska Puntland. waxaan aad u falanqeynay qorshaha amni ee aan ilaahay idankii jecel lahay in magaalada Boosaaso amnigeeda lagu adkeeyo. istiraatiijiyadii iyo qorshihii waa aanu dhammaystiranay, qaabkii hawshaas ay u bilaaban lahayd iyo xilliga ku habboon iyo qaabkii u furi lahayd waanu iyadana qorshaynay. hadduu ilaahay idmo waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii maalmaha dhow ee soo socda in qorshe amni oo dhammaystiran uu ka hirgeli doono magaalada Boosaaso.